Gabadhan oo lagu magacaabo Salfenia oo u dhalatay dalka Hindiya ahna 48 jir weligeed ma aysan guursanin, waxayna guurka ka xulatay daryeelka dibiga ka qayb qaata tartanka hirtida ee ka dhaca gobolka ay ku nooshahay ee Tamil Nadu. Go'aankeeda ah inaysan guursanin waa arrin dadka dhan ka dhaadhici weysay, balse markii dambe lagu aqbalay go'aankeeda. Gobolkan waxaa ka jirta caado qarniyo jirsatay oo lagu tartamayo dibiyada, kuwaasoo rag badan ay ku loolamaan inay gacanta ku dhigaan abaalmarinta qaaliga ah oo lagu xiray geeska dibiga. Caado dhaqameedkan waxaa lagu magacaabaa Jallikattu, waxaana dhacday in mar lagu joojiyay amar maxkamadeed kadib markii dad u dooda xuquuqda xayawaanka ay dacwo gudbiyeen, balse go'aankaas waxaa ka dhashay mudaharaadyo waaweyn oo rabshado wata, taasoo dowladdu ku qasabtay in ay fasaxdo. Mrs. Salfenia waxa ay dhaqamada dibiyada tartanka gala ka dhaxashay aabaheed iyo awowgeed oo ay sheegtay in ay u xanaaneyn jireen sida ilmo yar oo ay dhaleen oo kale. Hadda waxa ay xanaaneysaa dibi 18 jir ah, waxaana lagu magacaabaa Ramu. Waxa uu ku guuleystay ilaa 5 bilood, isaga oo ka qayb galay 7 tartan guud ahaan. Ramu waa wiilkayga oo kale, bilado ayuu ku guuleystay, waxaase intaas ka muhiimsan in uu yahay mid sharaf badan u soo jiiday qoyskeena, ayay tiri haweeneydan oo diiday in ay nin guursato. Waxaa maalin kasta soo gala $3 oo keliya, waxayna lacagtaas inteeda badan ku quudisaa Ramu oo u baahan raashin gaar ah maadaama uu ka qaybgalayo tartan culus. Waxyaabaha la siinayo waxaa ka mid ah timir, naarjiin, moos, sisin, loos iyo weliba bariis. Qofka tartanka ka qaybgalayana waa in uu xajin karaa dibiga ilaa uu ka gaarayo masaafo dhan 20 mitir, kadib ayuu helayaa abaalmarin ku xiran geesaha dibiga. Guulaha uu tartanka ka gaaray awgeed, waxaa Ramu lagu rabaa lacago aad u badan, balse waa ay diiday haweeneydan oo dibiga aad u jecel, guurkeedana ka dooratay dhaqashada dibiga.